أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال ولكن آدم نور حسن وحد سودواتين كانال كان مقال برودكشن إن شاء الله ما أنت برامج كان دي أنا حارة وين كل وداعو فورس أنا كبرنا إنه مقال سمنت أما فيديو إديتينغ أنا هو استعمالي دونه تلفون كان أندرويد كأما آيفون مركا أنا جود قالنا برامج كان وقارن أنت أنا جود قالين برامج كان حين كعسن أنا كانال كمقال برودكشن أديت كعصب تفضل سبسكرايب صار فيديو كان لايك صار بس كده مقال كان لايك تيسنا تجارسين شنب بقولوا لايك أدي أدوم سنتين لما تينا برنامجkan aynu ku baran doono muuqaal samaynta waxaa loo magacaabaa InShot ayaa loo magacaabaa qaybta waxaan isticmaalaa Brog ayaan isticmaalaa marka qaybta Google-ka ku jirta Google Play Store-ka Brog ma ahan qaybta Brog marka linkiisa waxaan soo dhigi doonaa qaybta hoose video-ga description-ka haddii aadan description-ka aadan aqoon comment ugu horeeyo ka download gareyso insha Allah marka programka InShot-ka marka la soo degtid si aad muuqaal aad ugu samaysid waxaad doorataa marka waxyaabo badan aad ku samayn kartaa programkan marka qaybta waxaan xoog saari doonaa video-ga aan xoog saari doonaa muuqaalka qaabka loogu edit gareynayo programkan InShot-ka runtii programkan waa program professional ah waxaad ku edit gareyn kartaa muuqaal 4K aad ku edit gareyn kartaa programkan marka programka si aad wax ugu edit gareysid waxaad ku dhufataa qaybtan video-ga aad ku dhufanaysaa sidoo kale waxaad ku dhufataa marka qaybtan ay ku qoran tahay new-ga aad ku dhufanaysaa new-ga markaad ku dhufatid wuxuu ku soo saari doonaa marka muuqaalada teleefankaaga ku jira ay ku soo saari doonaa sidoo kale qaybtan waxa waaye sawiraanta ku jirta teleefankaaga qaybtan all-ka ay ku qoran tahay waxa waaye sawiraanta iyo muuqaalada isku dhex jiraan waa marka ugu horeyn waxa soo doorataa marka muuqaalka aad u baahan tahay inaad edit gareysid ee soo dooranaysaa aniga muuqaalkan ayaan soo doortay dhowr muuqaal hal mar waad soo wada dooran kartaa iyo sawiraanba kadib waxaad ku dhufataa calaamadan hoose ee saxda aad ku dhufanaysaa si aad muuqaalkaaga u edit gareysid marka sidii tan ayaad gudaha ugu soo gali doontaa programka InShot-ka qaybta lagu edit gareeyo muuqaalada ugu horeyn marka waxaad u baahan tahay programka talaabada ugu horeyso qaybtan canvas-ka ay ku qoran tahay inaad iska saxdid canvas-ka waxa waaye muuqaalkaaga size-kiisa waaye tusaalaha muuqaalkaaga haddii aad u edit gareynaysid muuqaal TikTok cabir uu leeyahay cabirkaas inaad dooratid haddii aad muuqaal aad u wadid YouTube-ka cabir uu leeyahay marka social media platformada way kala duwan yihiin sida Instagram-ka oo kale cabir uu leeyahay almuhiim qaybtan ugu horeyso ay ku qoran tahay canvas-ka waxa waaye muuqaalkaaga cabirkiis inaad iska saxdid intaadan edit gareynin ugu horeyn marka cabirkan ugu horeeya uu ku siinayo waxa waaye mid Instagram waaye waad u jeedinayaan filay logooyinka meesha ay ku saaran yihiin midkan hadda waa Instagram sidoo kale midkan kale waxa waaye YouTube 16:9 midkan 9:16 ay ku qoran tahay waxa waaye TikTok sidoo kale cabir kale meeshan ay ku siinayaa marka cabirkaad u baahan tahay marka soo dooratid qaybtan waxaad ka sameyn kartaa calaamada u jeedin muuqaalkaaga waad ku soo weyneyn kartaa waadna ku yareyn kartaa zoom in iyo zoom out marka muuqaalkan hadda waxa waaye 16:9 marka uma diyaarsana qaab TikTok ahaana sidoo kale TikTok waad ka dhigan kartaa waad soo weyneyn kartaa calaamadan kale oo hoose labadan calaamo markaad fiirisiin filaartan hoose muuqaalkaaga qaybta hoose aad dhigi kartaa filaarta qaybta kore u socotana waxa waaye waxaad ka sameyn kartaa muuqaalkaaga qaybta size-ka qaybta kore aad geyn kartaa size-ka aad soo dooratay marka cabirkii aad u baahan tahay soo dooranaysa ani hadda midkan 16:9 oo YouTube-ka aan doortay calaamadan saxda ayaan ku dhufanayaa sidoo kale icon-ka kale oo ku soo xig waxa waaye music waaye music aad ku dhufanaysaa haddii aad u baahan tahay muuqaalkaaga inaad cod aad u samaysid qaybtan waxaad doorataa marka track aad ku dhufanaysaa qaybtan ugu horeyso feature-ka ay ku qoran tahay waxa waaye waxyaabaha ku diyaarsan InShot-ku waaye marka haddii aad internet aad isticmaalayso oo kale waad la soo degi kartaa qaybtan ay ku qoran tahay my music waxa waaye teleefankaaga gudihiisa waxyaabaha ku jiraan waaye almost marka music ama codka aad u baahan tahay soo dooranaysaa sidoo kale adigoo taagan qaybta music waxaad sameyn kartaa marka codkaaga ayaad duubi kartaa qaybtan record-ka ay ku qoran tahay muuqaal ayaad cod dul saari kartaa warajana marka qaybtan inaad wada fahanteen music-ga sidoo kale icon-kan kale oo ku soo xig waxaa loo isticmaalaa stickers ayaa loo isticmaalaa muuqaalkaaga sticker oo animation inaad ku soo dari kartid programka awood ayuu ku siinayaa tusaalehan hadda stickerkan ayaan dooranayaa kadib stickerka aad u baahan tahay markaad ku soo dartid waxaad sameyn kartaa marka stickerkaaga meeshaad u baahan tahay aad ka dhigi kartaa muuqaalkaaga sidoo kale stickerkaada waad soo weyneyn kartaa rotate ayaad ku sameyn kartaa waad yareyn kartaa stickerkaaga marka meeshuu ku habboon yahay markaad dhigtid waxaad ku dhufanaysaa marka calaamadan saxda aad ku dhufanaysaa marka waxyaabo badan ayaa ku jiro programka sticker badan ayuu leeyahay waa soo dooranaysaa midkii aad u baahan tahay kadib calaamadan saxda kore ee ku dhufo
sidoo kale waxaad samayn kartaa marka sticker-kaaga muuqaalka dhan ayaad la ekaysiin kartaa. sidoo kale haddii aad dhab siisidna sticker-ka fartaada dhab aad ku siisid waxaad ku samayn kartaa marka waad jijiidi kartaa. hadda markaan dhab siiyo oo kale meeshaan u baahanayaan geyn kara waad ujeedinayaan filayaa. haddii aad u baahan tahay muuqaalka dhan inaad la ekaysid hal mar klik ku sii, falaaraha geesaha markay kuu soo baxaan muuqaalkaaga ayaad la ekaysiin kartaa. haddii aadan u baahnayn muuqaalka dhan inaadan la ekaysin meel gooni markuu maraayo muuqaalkaaga inuu soo baxo geesaha ayaad ka yareyn kartaa. sidoo kale dhab ayaad siinaysaa meeshaad u baahan tahay drag and drop ayaad u samaynaysaa. waad ujeedinayaan filayaa. marka qaabkan ayaad u isticmaali kartaa qaybtan sticker-ka. sidoo kale iconkan kale ku soo xig waxaad u isticmaali kartaa muuqaalkaaga inaad qoraal aad ku soo dartid, textiga ayaad ku dhufanaysaa, kadib qoraalkaad u baahan tahay aad ku qoraysaa. marka waxaad samayn kartaa marka qoraalkaaga waxyaabo badan ayaad ka bedeli kartaa, sida qoraalkaaga inaad u samaysid border, shadow inaad u samaysid waxyaabo badan. kadib sidoo kale qaybtan eeda ay ku qoran tahay ee capitalka ee smallka qoraalkaaga waad iska bedeli kartaa fartiisa. waad ujeedinayaan filayaa. fartii aad u baahan tahay aad dooran kartaa. sidoo kale marka waxyaabo badan ayaad ka bedeli kartaa qaybtan qoraalka markaad soo gashid. haddii aad u baahan tahay qoraalkaaga markuu soo galayo inaad u samaysid waxyaabo transition oo kale waad u samayn kartaa asigana. wax walba ku saabsan iyo markuu dhamaanayo in iyo out-ba inta ay ku saaran yihiin. sidoo kale qoraalkaaga wax walba ku saabsan markaad dhamaysid marka calaamadan saxda ayaad ku dhufanaysaa. waxaad samayn kartaa marka qoraalkaaga waad yareyn kartaa. marka meeshaad u baahan tahay aad dhigaysaa marka qoraalkaaga waad ujeedinayaan filaya meeshaad u baahan tahay aad dhigi kartaa. qoraalkaaga marka muuqaalka aad la ekaysiin kartaa. haddii aad u baahan tahay meel gooni ah qoraalkaaga markuu marayo inuu soo galana muuqaalka waad samayn kartaa asigana. hadda qoraalkan muuqaalka aan la ekaysiinay aadam meeshaan ku qoray markaan bilay aan dhaho muuqaalka markuu dhammaado uu la dhammaanaya qoraalkan kama baxayo. sidoo kale qodobkan kale ay ku qoran tahay filter waxaad ku samayn kartaa muuqaalkaaga color correction ayaad u samayn kartaa. qaybta filterka markaad soo dooratid waxaad sii doorataa qodobkan labaad ay ku qoran tahay filter ayaad dooranaysaa. meeshaan preset ayaa kugu diyaarsan midkii aad u baahan tahay aad dooranaysaa. runtii colors aad u qurux badan ayaa ku diyaarsan. midkii aad jeceshahay aad dooranaysaa oo muuqaalkaaga uu ku habboon yahay. way badan yihiin waxyaabo badan ayaa ku diyaarsan haddii aad u baahan tahay. sidoo kale black and white. marka saaxiibayaal qaybtan colors aad u badan ayaa ku diyaarsan oo ujeedin colorkan hadda aad ay ugu qurux badan yahay. haddii aadan u baahnayn marka waxyaabaha filterska meesha ku diyaarsan qaybtan adjustiga ayaad dooranaysaa. marka qaybtan adjustiga markaad soo doortid meeshan waxaa kugu diyaarsan toolska aad ku samayn kartid color correctionka hadduu ahaan lahaa contrastiga, saturationka, highlightka, wax walba qaybtan ayaad ka helaysaa toolisha. marka almost marka qaybtan filterka colorkan ayaan doortay. marka sidoo kale iconka meeshan kuu saaran waxaad ku samayn kartaa iconkan aad ujeedin muuqaalkaaga befogiis itus ayaad dhigi kartaa. befogiis waa sidaan, waa sida originalka kaamirada aan ku duubi. afterna hadda markaan dooranay effectigan meesha inoo saaran oo color correctionka sidaan ayuu noogu dhigay, waa aad u qurux badan yahay. sidoo kale iconkan kale nooga xig waxaa lagu magacaabaa bib ayaa lagu magacaabaa. muuqaalkaaga haddii aad u baahan tahay muuqaalkaaga inaad dul saartid ayaad qaybtan bib-ga dooranaysaa. qaabka asxaabta reactionska sameeya oo kale qaybtan bib-ga ay isticmaali doonaan. waad ujeedinayaan filay hadda muuqaalkeena waxaynu dul saarnay muuqaal kale ayaynu dul saarnay automatical. marka qaybtan bib-ga muuqaalka markaad kusoo dartid ama sawir ayaad kusoo dari kartaa muuqaalkaaga ama sidoo kale muuqaalo kale ayaad kusoo dari kartaa. hadda muuqaalkan aan soo doortay oo kale qaybtan geeska markaan dhigo waxyaabo badan ayaan ku samayn karaa muuqaalkan. sida volumeka oo kale haddii aad u baahan tahay muuqaalka meesha aad soo saartay oo kale volumekiisa waad yareyn kartaa waad badin kartaa. sidoo kale speed ayaad ku furi kartaa, slow motion ama fast motion ayaad ka dhigi kartaa muuqaalka oo bib ahaan meesha aad ugu soo dartay. sidoo kale copy iyo waxyaabo badan ayaad ku samayn kartaa. marka haddii aad u baahan tahay marka aad ku qanacsan tahay qaabkan inaad u samaysid oo kale mid kale aad ku soo dartid qaabkan ayaad u samayn kartaa. marka ani hadda uma baahni waan iska delete gareynayaa, delete ayaan leeyahay. sidoo kale iconkan kale oo kusoo xigo bib-ga waxaa lagu magacaabaa brikad ayaa lagu magacaabaa. waxaad ka jarjari kartaa muuqaalkaaga ayaad ka jarjari kartaa. qaybtan hadda uu saaran yahay waxaa waaye qodobkan waxaa waaye trim waaye. muuqaalkaaga geesa ayaad kasoo jari kartaa. sidoo kale haddii aadan u baahnayn muuqaalkaaga inaad geesa aadan kasoo jarin waxaad isticmaali kartaa qaybtan kadka waxaad samayn kartaa marka muuqaalkaaga qaybtaad u baahan tahay ayaad iska delete gareyn kartaa. splitna waxaa waaye muuqaalkaaga qaybtaad u baahan tahay aad ka jari kartaa.
waan rajaynaa marka intaas inaad wada fahanteen. Sidoo kale iconkan kalena waxa waaye split waaye. Split waxaad u isticmaali kartaa muuqaalka inaad laba qayb aad ka kala dhigtid. Waa daawanaysaa meesha indicatorka calaamadan ay ku saaran tahay waxaad samayn kartaa split aad ku samaynaysaa. Kadib muuqaalkaaga laba qayb ayuu sidaas ku noqonayaa. Iconkan kale oo ku soo xigan waxaad u isticmaali kartaa delete ahaan ayaad u isticmaali kartaa. Clipka aad u baahan tahay muuqaalkaaga markaad jarjartid ayaad dooranaysaa kadib delete ayaad leedahay. Hadda sidaan ayaan ku delete gareynay. haddii aad waxyaabo qalad aad samaysidna waad soo celin kartaa. Iconkan aad ka soo celin kartaa oo undo-ga qaybtan ku saaran click aad ku siinaysaa, muuqaalkaaga dib ayuu u soo laabanayaa. Sidoo kale haddii aadan u baahnayn waxyaabaha aad soo celisay waxaad ku samayn kartaa iconkan redo-ga ayaad click ku siinaysaa, dib ayuu u baxayaa. waan rajaynaa marka saaxiibayaal undo iyo redo inaad wada fahanteen. Sidoo kale iconkan kale ku soo xig waxaa lagu magacaabaa background ayaa lagu magacaabaa. Iconkan markaa click ku siisid background-ka waxaad samayn kartaa marka muuqaalkaaga sida qaybtan blur ahaan ayaad u samayn kartaa. runtii qaab cajiib ayaad u samayn kartaa crop-kan oo center-ka geesahana muuqaalka kale laga saarayo oo qaybta gadaale oo blurna lagu furaayo. waa runtii feature aad u qurux badan. haddii aad u baahan tahay waxyaabo kale oo sida blurka aadan u baahnayn colors ahaan ayaad u samayn kartaa, ama sidoo kale waxaad u samayn kartaa gradient. waxaa waaye dhowr color la isku dhex dari waayo, ama midkan kale ayaad ku samayn kartaa. runtii qaybtan waxaa aad u qurux badan, blurka aad u qurux badan. marka blurka oo kale markaad ku samaysatid calaamadan saxda ayaad ku dhufanaysaa. hadda labadan clip oo kale hadda markaynu daawano way kala duwan yihiin. midkan kale markuu soo galay waa normal, kan waxaa ku furan blur ayaa ku furan oo geesaha waad u jeedinayaan filayaa. sidoo kale iconkan kale oo ku soo xigan waxaad u isticmaali kartaa muuqaalkaaga inaad slow motion iyo fast motion aad ka dhigtid. one time iskan hadda waxaa waaye muuqaalka normalkiisu waaye, socodka muuqaalka normal ahaan waaye. haddii aad ka yaraysid wuxuu noqonayaa slow motion ayuu noqonayaa tirada meesha ku saarneed. haddii aad ka badisidna wuxuu noqonayaa fast ayuu noqonayaa muuqaalkaaga. waad u jeedinayaan filaya muuqaalka durationkiisa ama socodka muuqaalka ayaa iska yar. one time iska automatical waxaa waaye normalka muuqaalka waaye. haddii aad ka yaraysid waxaa waaye slow motion waaye. haddii aad ka badisidna waxaa waaye fast motion waaye. marka normalkiisa ayaan ku celinayaa. sidoo kale iconkan kale oo kusoo xigan waxaad u isticmaali kartaa muuqaalka inaad crop aad ku samaysid geesaha meeshaad u baahan tahay inaad kasoo jarjartid. waad u jeedinayaan filaya meeshaad u baahan tahay ayaad ka jaraysaa muuqaalkaaga. saalaan qaybtan intaan bes ayaan ka jarayaa, kadib calaamadan saxda kore ayaan ku dhufanaya. marka iconkan asigana sidaan ayaad u isticmaali kartaa oo qaybta crop-ka muuqaalkan hadda ugu horeeya oo kale sidaan aynu ku crop garayn. waad u jeedinayaan filayaa. marka haddii aadan u baahnayn oo kale muuqaalka hadda aynu crop-ka aynu ku samaynay oo kale oo sidaan aynu ka dhignay, muuqaalka ayaad dooranaysaa kadib qaybta crop-ka soo fur, sidiis hore ayaad ku celinaysaa muuqaalka. waad u jeedinayaan filaya originalkiisa hore ayuu ku laabtay. iconkan kale oo kusoo xigan waxaad u isticmaali kartaa volume-ka muuqaalkaaga, marna waad ka badin kartaa marna waad ka yareyn kartaa. haddii aad 100% aad ka yaraysid muuqaalkaaga codkiisa hoos ayuu noqonayaa. 100 ilaa 200 ayaad gaarsiin kartaa muuqaalkaaga volume-kiisana aad ayuu u badanayaa. sidoo kale qaybtan hoose ay ku qoran tahay extract audio waxaad u isticmaali kartaa muuqaalkaaga haddii uu cod uu wato, codka aad ka kala saari kartaa. qaybtan extract-ga markaad ku dhufatid waad u jeedinayaan filaya hadda muuqaalkan wax cod ma wato, laakiin laba track ayuu kaaga dhigayaa markaad extract aad ku samaysid. sidoo kale iconkan kale oo kusoo xig waxaa lagu magacaabaa duplicate. waxaad u isticmaali kartaa muuqaalka markaas aad taagan tahay inaad badisid. click markaad ku siisid muuqaalka wuu kuu badanayaa, mid kale ayaa kuu samaysmi doono. iconkan kale kusoo xigan waxaa lagu magacaabaa reverse ayaa lagu magacaabaa. muuqaalkaaga waxaad samayn kartaa siduu u socday caqsigiisa ayaad samayn kartaa. markaan qaybtan reverse aan ku dhufto oo kale xogaa process ayuu samayn doonaa muuqaalkaaga cabirkiisa ayaad ku xiran tahay. kadib waxaa kuu samaysmi doono mid cagsi ayuu kuu samaysmi doono. muuqaalka originalkiisa socodkiisa sidaan ayuu ahaa oo iska normal caadi ah. midkan reversiga markaad fiirisiinna sidaan ayuu noqday. reverse waa cagsi waaye, gedi ayuu u soconaya muuqaalka asigoo dhanba. waad ujeedinayaan filayaa. iconkan kale oo kusoo xigana waxaa lagu magacaabaa rotate ayaa lagu magacaabaa. muuqaalkaaga waxaad ku samayn kartaa waad ka gedgedin kartaa. waad u jeedinayaan filayaa. midkan kale oo kusoo xigana waxaa waaye flip waaye. muuqaalkaaga bidix iyo midig ayaad u jeedin kartaa, right iyo leftiga. iconkan kale ugu dambeeyana waxaa lagu magacaabaa freeze ayaa lagu magacaabaa. meesha aad ka taagan tahay muuqaalkaaga ayaad waxaad ka samayn kartaa waad istaajin kartaa. freeze markaan ku dhufto oo kale hadda muuqaalka aynu play garayn waad u jeedinayaan filayaa. qaybta freeze-ka markuu soo gaaro muuqaalka wuu istaagayaa. intaad u baahan tahay aad ka samayn kartaa freeze-ka kadib muuqaalka wuu soconayaa.
marka wax walba ku saabsan muuqaalkaaga dhanka editing-ka markaad dhammaysid waxaad u baahan tahay inaad save gareysatid muuqaalka. waxaad ku dhufataa marka calaamadan save-ka aad ku dhufanaysaa. sidoo kale calaamadda save-ka intaadan ku dhufan waxaad iska fiirisaa resolution-ka iyo sidoo kale frame rate-ka iska fiiri. resolution-ka quality-ga muuqaalka waaye marka cabirkaad u baahan tahay aad dooranaysaa. ilaa 4K waad dooran kartaa haddii aad u baahan tahay. frame rate-kana ilaa 60 waad dooran kartaa. sidoo kale waxaad ku dhufataa marka qaybtan calaamadan save aad ku dhufanaysaa. kadib programka InShot wuxuu sameyn doonaa 100% ayuu gaarsiin doonaa muuqaalkaaga tirada meeshan aad u jeediin. 100% markuu gaarana sidaas ayuu ku gali doonaa muuqaalka gallery-ga telefonkaaga. marka waxaan rajaynayaa saaxiibayaal dhammaantiin inaad ka wada faa'iidaysateen course-kan aynu ku baranayno muuqaal samaynta anagoo isticmaalayno telefonkeena Android-ka ama telefonkeena iPhone-ka. marka course-kan intaan ayaan kusoo gabagabeyn doonaa. sidoo kale waxaan kaa codsan lahaa haddii aad intaan la soo gaartay course-ka aad ka faa'iidaysatay si walaalkaaga kalena uu ugu faa'iidaysto fadlan u share garee. walaalkiin Adam Nuur Xasan oo idin leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.